nin boqor ah ayaa wuxuu lahaa nin la taliye ah. la taliyuhu waa mu'mine ogow, waa nin qadarka aaminsan. maalin baa mar walbo ninkan boqorka ah ee balaayo ku dhacdo ama gabar ay ka dhimato, dhaawac soo gaaro, dhib uu yimaado, ninka maadaama la taliyaha uu yahay wasiirkiisa wuu u tagaa, madaxu u salaaxa, wuxuu yidhaahdaa usbur lacalahu khayr, inay khayr taha laga yaabaa. laakiin ninkan mu'min ma aha, boqorka ah kelimadii wuu dhibsanayaa. gabar baa ka dhimatay, ta loo yimaadaa la yihi lacalahu khayr, lacalahu khayr. war waa sidee? gabar baa iga dhimatay, lacalahu khayr, say khayr ku tahay? gabar baa iga dhimatay. ninkan waa doodaya. hadhow haddana wiil baa dhimanaya, lacalahu khayr, usbur, sabir. ninki marka wuxuu xoogahaa dhibsaday ninkan iyo khayrka uu sheegaya, lacalahu khayrtiisan wuu yaro dhibsaday. isagoo khaatiyan ka taagan baa maalin safar la aaday, hunting, ugaadh, in banaanka laga soo yaro ugaarto xoogaha sagaaro ama bakayle ama something adi iyagoo la cayrinaayo oo la daba ordayo oo xagga ka mara xagga ka mara, qabta la leeyahay. boqorka nin yaro ladana wuu ahaa, buurane ayaa wuu turaanturooday, kadibna wuu kufay. waxaa kufaya waa kii boqorkii. mar allaala markuu boqorkii kufay wuu dilaandiloobay, si u gadgadoomaayey hog ama god buu madaxa la galay. marka goduu ku dhex dhacay. intuu godka kusii socday far baa jabaysa, fartaa yar ayaa jabtay boqorkii. eeg, fartii baa jabtay, wuu xanuunsaday, dhiig baa ka da-aya, fartuna waa jaban tahay. ninkii la taliyaha caadadiisu maxay ahayd? lacalahu godkii buu kala hadlaaya, uu leeyahay boqoro waa lagaa soo bixinayaa godkane, sabir sabir lacalahu khayr. ninka waa xanuunsanaya, markaasuu saas usoo fiiriyey boqorki, markaasuu yihi war far baa ijaban maanta. wuxuu yihi lacalahu khayr, khayr inay taa laga yaaba, waa fartan jaban iyo godka aad ku dhacday. aad buu u xanaaqay. marka waa laga soo bixiyey godkii boqorka. waa musiibo inagoo dhan ina wada qabsato soo maha. markii banaanka la keenay, dhakhtar baa loola soo orday. waxaaba ugu darnayd markii dhakhtarkii yidhi fartan waa la goynayaa, wuu naxay. markaasuu la taliyihiisii fiirsaday, wuu fiiriyey, wuxuu yihi war dhakhtarka wuxuu leeyahay ma aragtaa, fartaa lagaa goynaa uu leeyahay. wuxuu yihi dhib ma leh, lacalahu khayr, farta in lagaa gooyo khayra laga yaabaa. aad buu u xanaaq. wuxuu yihi war inkaar qabahan ya, oo wax walbaba inaad dhintuuba rabaaba ninkan, wax walba khayro, war ha la xiro. eeg, ha la geeyo xabiska, shaqadii ha laga cayriyo, reerkiisii ha laga fogeeyo. intee dhibaataa la isugu daray ninkan. waa maroo waa in la xiro, waa mar labaadoo in shaqadii laga joojiyo, waa mar saddexaadoo in reerkiisii iyo ciyaalkiisii kuwuu qalbiga ku qabowsanayay in laga fogeeyo. 3 dhibaato soo maaha. muxuu yihi laakiin markii la xiray ayaa wuxuu yihi boqorow intaasoo dhiboo aad ii geysatay lacalahu khayr. eeg, carabkiisa waxa uu bartay, carabkiisa hadalka wanaagsane uu bartay. fiiri, carabkaaga bar, carabkaaga waa inaad tababartaa, carabkaaga waa inaad khayrka bartaa. lacalahu khayr, wax walboo ku qabsada lacalahu khayr. qada haddaad weydid lacalahu khayr, haddaad xanuunsatid lacalahu khayr, lagaa dhinto lacalahu khayr, shaqo weydid lacalahu khayr. waquluu linnaasi maxaa la yidhi xusnan. hadalka nin baa u yimid rasuulka salawatu llahi wasalaamu aleyh, caraabi ah. wuxuu yihi rasuul allow ii sheeg hal shay oo aan jannada ku galo, shay igeeya jannada ii sheeg. wuxuu yihi hagaaji hadalkaaga, carabkaaga yaanu afkaaga ka soo bixin ilaa khayr maahane, jannaad gelaysaaye. dadka taasay ku tartami jireen. annagana waad aragtaan afkeenna wax ka soo baxaayo soo maha. khayrku waa yar yahay, khayrku waa yar yahay. marka ninkii wuxuu yihi lacalahu khayr, boqorow war oroduu yihi khayr ha kuu noqoto xabiskee orod. ninkii waa la xiray, boqorkii gacantii baa la gooyey. gacantii marka la gooyey kadib maxaa dhacay? waa u raysatay. gacantii markay raysatay dee nina caadadii kama tago. wuxuu doonay inuu ugaadhii ku noqdo haddana, laakiin maanta lama jiro wasiirkii xakiimka ahaa
mu'minka ahaa lama socdo askar kalaa la socotay kuwa aan khayr lahayn kadibna waa la baxay sidii loo socday bakaylihii ama sagaaradii ama eeladii loo cayrinayey waxaa ka hor yimid xadkii bay dhaafeen xadkiisii boqorka wuu ka gudbay waxaa ka hor yimid qolo hergaanti ah yacni waa cid kale oo ciidamo ah oo boqor kale leh oo ilaah ay caabudaan u raadinayo qurbaan yacni qoladaas waxay caabudaa asnaan bay caabudaan sanamka marka sanad walba waxaa loo gowracaa qof insaan ah qof insaana la xirxirayaa kadibna waa la seexinayaa ninkii waa la gowracayaa dhiiggiisiyaa la marmarinayaa markaasuu ilaaha sanamka ah khayrkiisii soo daadinayaa haddii roob ay rabaan sanamkaa keenaaya webiga hadduu guro waa keenayaa roobkii guurkii farxaddii ama waxay gaaladu aaminsan yihiin wax ka jirana male laakiin ilaahay baa ku cadaabaya qolo marka ilaahoodii sanadkii baa la gaaray u raadinaya qurbaan oo ordaya ayaa waxay arkeen dee ninkan oo boqor ahoo iska cayilan oo buuran ya oo ay dadkoo yarna la socdaan geesiyaa laga galay askartii waaba carareenba bigtii horeba way carareen keligiibaa ma ordi kara ninkan marka waa la qabtay boqorkii waa la xirxiray garbaha la saartay sida sagaaradii ilaahay baa loo geeyey waa la hoos seexiyey ninka waa yaaban yahay wuu arkaa in mindiyihii iyo seefihii agtiisa lagu afaynayo jararaf jararaf maalihii in la gowracaa la rabaa nolol waa u dhammaatay ninkii marka khalaas wuu isdhiibay wuxuu isku dhiibay dee nin mindi agtiisa lagu afaynayo ka war wuxuu is yidhi maanta ciidamadiina waa ka carareen cir kaa fog dhul kaa fog wax ku badbaadin kara maanta ma leh lacalahu khayrna ma yaqaana soo maha ninkii waa isdhiibay noloshiiuba ku dhintayba naftii un baanan ka bixin laakiin dareenkii oo dhanaa ka tegey haddaad gowracaysid iyo haddaad jarjaraysidba waxba ma dareemaya qalbi wuu quustay qalbigii baa dhintay dad nolosha ku dhintay soo ma jiraan wuu iska yaallaa marka waxaa loo keenay dhakhtar waa inuu ilaaha waxa loo gowracayo waa inuu saliim ahaadaa oo uu dhamaystirnaadaa dhakhtarkii baa lugaha ka fiiriyey lugihiisi waa dhamaystiran yihiin lugihiisii cajirihiisii dhexdiisii si u waday ilaa iyo gacmihii markii dambe dhakhtarki wuxuu arkay fartiyo go-an ayuu arkay markaasaa wuxuu or stop joojiya ninkan lama gowrici kara waa naaqis yani udxiyadan qurbaankan waa naaqis far baa go-an ilaahna looma gowraco wax naaqis ah yaa maqlaya hadalkaa dhakhtarku uu leeyahay boqorkii markaasaa noloshii baa kusoo noqotay dhaqdhaqaaquu bilaabay war ninka sidaa dhahaya ninkan lama gowracayo waa kii bal kor u fiiri waa dhakhtar ninkii baa dhaqdhaqaaq bilaabay waxaa la yidhi ninka hala furo dhulkiisiina ha ku noqdo ninkii waa ilahay baan kugu dhaariyey ninka marka xarkihii laga furay waxa ugu horeeya waa su-aalay ogaada waxa ugu horeeya oo qalbigiisa kusoo dhacaya waa maxay lacalahu hadalkii ninkii wasiirka ahaa ayaa qalbigiisii kusoo dhacay wuu farxay waa la daayey orodku meesha ka soo bilaabay reerkiisii kuma leexanin boqorkii xagguu aaday xabiskii war ninkii wasiirka ahaa xakiimka ahaa mu'minka ahaa ninkii i badbaadiyey ninkii askartii keena furaha keena askartii kuma daynin isagii baa ka furaaya ninkii markuu furay boqorki wasiirku waa yaaban yahay war ninka maxaa dhacay maanta ma ku deldeli rabaa miyuu ku deli rabaa ninkii buu isku duubay wuu ku ooyey wuu yaaban yahay ninkii war bal soo bax xabiska ka soo bax war waa sidee boqor sidaan kuguma ogeyne adigoo ilacnadaaya oo ayaad ixirtay waa maxay farxaddan wuxuu yihi ni waa i badbaadisay ma aniga xabiska ku jiraa ku badbaadiyey haye bal ii waran oo ii sheeg wuxuu yihi arrintii buu uga sheekeeyey wuxuu yihi maalinkaa idhaysay lacalahu khayr fartaa la gooynayo lacalahu khayr inuu ilaahay khayr kaaga dhiga laga yaabaa wallaahi khayr buu ilaahay iiga dhigay waana i badbaadisay oo fartaas maanta hadday igu ooli lahayd maanta adduunye ma joogena waa la gowrici lahaa
laakiin fartaas ayaa ilaahay ugu badbaadiyey laakiin su-aal baan ku weydiinayaa wasiirow markaan ku xirayey anigoo ku xiray shaqadaadii kaa cayriyey reerkaagii maaragtaaye kaa fogeeyey ayaad i tustay oo aad i tiri lacalahu khayr boqoro waxaad igu samaysay khayr inay ii taha laga yaabaa aniga taydii la garay laakiin xabiska waa maxay khayrka xabiska ku jiro waa maxay wuxuu yidhi maanta haddaan waad og tahay buu yidhi aniga nin geesi ayaan ahay daacad kuu ah kaama carareen markii ciidamadaasi qolada hergaantida ay ku qabatay maahi kuwan xaabadan fulayaalka ah ee kaa cararay maahi naftaan ku duldhigi lahaa ani adiga waa nala wada qaban lahaa adiga fartaasaa ku badbaadi lahayd laakiin anigu nin dhammaystiran ayaan ahay anaa la igowrici lahaa marka inaad iska kay reebtid oo aad weliba xabis guriga haddaan joogi lahaa kaama hareena waa kusoo dabageli lahaa aad xabis intaa igelisid bir igu xirtid ya oo aanan soo bixi karin khayr bay ii ahaydoo adiguna waa i badbaadisay may fahamteen nin walba qadarkii u aaminay soo ma aragtid marka lacalahu khayr shar waxaad umalaynaysid baa ilaahay khayr kaaga dhigi karaa marka ha quusanin addoontii allay ha culayskan ha ka quusan yaanu quusku gelin culayskaan